dawada waxaan ognahay markaan shaqo ka shaqaynayno waxaanu jecel lahay in runtii promotion aynu helno in kor laynoo qaado in layna dalacsiiyo in mushaharka laynoo kordhiyo waxaasoo dhan goorma yimaadaan waa markuu ninka maamulaha ku ah ee madaxda ku ah ee kaa sarreeya uu kugu qanacsan yahay laakiinse hadduu kugu istaago mushkilad baa imanaysa marka casharka wuxuu ku saabsan yahay maamulaha kaa sarreeya ee madaxda ku ah sidii aada u soo jiideen lahayd siduu kuu jeclaan lahaa taasina haddii aada hesho waxaa imanaysaa wax badan oo kale inaad hesho dawada waxaa xaqiiqa ah haddii qofka madaxda kuwa aydan isjeclayn shaqadaa ma sii joogi kartid qofka madaxda kuwa markuu ku necab yahay way adagta inaad la shaqaysaa maalin kasta culays iyo daqdi iyo warwari walaac baad ku jiraysaa horumar badan ma gaadhaysid saa daraaddeed waxaan ku leeyahay waa inaad la timaadaa arrimihii keensan lahaa qofkani inuu ku jeclaado jacaylka inuu sheegaynaa maaha inaad iska dhahadhiciso si muxuu haayay adigoo shaqadii qabaneen inaad keliya iska dhahadhiciso istiraado ninkan iska dhahadhiciyo ha ku dilacsiiyo jacaylka inuu sheegaynaa waxa weeyaan waa jacayl adiga dan ku ah isagana dan u ah oo shaqada ay ku hagaagayso hadafkuna waxa weyaan markaas aynu u jeednaa shaqada sidii loo hagaajin lahaa ee shaqo fiican loo qaban lahaa hadafkeeni wax weeye qofka madaxdanu sheegaynana maaha qof madaxoo intuu iska yimi meesha raba inuu dadku iska wada dhaadhiciyaan maaha waxaanu ka hadlaynaa qofka madaxda saxda ah ee raba shaqo inuu qabto qofkaasaynu ka hadlaynaa 10 shay baa jira oo ninka maamulaha aada u soo jiidanaya oo runtii tilmaamaya haddii adiga lagaa helo shaqaale ahaan inuu ku jeclaanayo qofka madaxda ku ah koog waxa weeyaan waa in shaqadii lagu diray aada ka soo baxda shaqaa laguu dhiibi shaqada ka soo baxa shaqadaada haddii aanad qaban ood istiraahdo maamulahaaga iska dhaadhici oo si kale iskaga dhaadhici kaa socon mayso maamulaha qofka madaxda ku ah maskaxdiisa waxaa ku jirtaa inaad shaqo aada qabato markastoo shaqadaada aad ka soo baxdo qofka maamulaha ku ahi wuu ku jeclaanaya waanu ku tixgelinaya waanu ku ixtiraamaya laakiinse shaqadaada haddii aad ka soo baxi weydo oo istiraado si kale iskaga dhaadhici ninka madaxda ku ah taasi kaa socon mayso daawada marka aad maamulahaaga rabteen iska dhaadhiciso kow waxa weeyaan baan idhi waa inaad shaqadaada qabsataa waxaa intaa ku raacaya waa inaad caawisaa dadka kale shaqaalaha ee kula shaqaynayana oo haddaad noqoto qof shaqadiisao keliya qabanaya oo shaqaalihii kale o dhan xidhiidh aan la lahayn oo qof kale aan biyo ka badsiinayn dee mushkilad bay noqonaysaa marka waa inaad isku daydaa shaqadaada inaad qabato isla mar ahaantana shaqaalihii kale kula shaqaynayena aada si fiican uula shaqayso oo wixii mucaawino ay kaaga baahdaan aada siiso qodobka labaadi dawada waxa weeyaan ee maamulaha kugu jeclaanaya waa in haddii ay mushkilada dhacdo oo mushkiladaasi aada aragto mudiirka markaad u sheegayso mushkilad keliya ha u sheegin xalka u sheeg markastoo qofka maamulaha ku ah aada u timaado adigoo mushkilad wada mushkiladana xalkeedii wada waa markastuu ku jeclaanayo laakiinse haddaad noqoto qof markasta mashaakilun wada oo xalka maamulaha ka sugaya maamulaha iyo qofka madaxda ku ah wuxuu dareemayaa culays buu dareemayaa bale markastuu ku arko wuxuu ku arkayaa qof runtii markasta negative ah oo waxunun wada mushkiladun qof wada marka dawada maxaa laga rabaa markastay mushkilad dhacdo oo mushkiladda aada rabto inaad u sheegto qofkii maamulaha ku ahaa waa inaad mushkiladda xalkeedana u raacisaa oo tiraa maamula xalku waa kaa markastoo uu arko maamulahaagu inaad xalkiina sheegayso oo markaasuu farxaayo qodobka saddexaad ee daawada waxa weeyaan maamulahaaga qofka madaxda ku ah waxaad u sheegtaa wuxuu u baahan yahay laakiinse ha u sheegin waxa uu jecel yahay in badanoo inaga miday waxay jecel yihiin inay qofka maamulaha u sheegaan wuxuu jecel yahay iyo waxay dhegihiisu ay jecel inay maqlaan taasi sax ma aha maamulaha saxda ah qofka madaxda ee saxda ah wuxuu jecel yahay qofka shaqaalaha u ahay inuu u sheego wuxuu u baahan yahay haddii maanta arrin soo socotaa ay jirto oo arrintaa haddii wax laga qaban waayo ay dhibaato imanayso maamulahaga u sheeg sababto uu u baahan yahay arrintaa inuu ogaado inta aanay dhicin wuxuu u baahan yahay inuu ogaado
laakiinse haddaad isku dayda mar kasta in qofka maamulaha aada u sheegto wuxuu jecel yahay oo tirado waxaasaa dhaco wax wanaagsan baa dhacay waa layna ammaanay adiga waa lagu ammaanay ood ka qariso xaqaa'iq fara badan oo ay tahay inuu ogaado aakhirka arrimaha markuu ogaado inay jireen adna aada ka qarisay uu ku nacaya. markaa isku day daawada qofka shaqaalaha maamulaha ku ah inaad u sheegto wax ay tahay inaad u sheegto. waad aragto madaxda soomaad arag dad badan baa iska dhaadhiciya. dadkaasi maxay iskaga dhaadhiciyaan? waxay jecel yihiin inay uga waramaan wax wanaagsanun. wadanku waa fiican yahay, wasaaraddu waa fiican tahay, kambanigu si fiican buu socdaa. qofkan maamulaha ahina runtii wax badan ma oga, sababto wuxuu ogyahay keliya intaa yare ee ku xareereysan ayuu ogyahay. laakiinse meesha shaqadu markay ballaaran tahay ama ay wasaarad tahay ama kambani weyn ay tahay ama wadan ay tahay, wax badan oo dhacayo xaqaa'iqa lama socdo. cidda u sheegaysa waayo waa cidda ku hareereysan. ciddaasaa la rabaa xaqiiqada inay u sheegto. haddii ciddaasi xaqiiqada ka qariso ay wax wanaagsan u sheegaan oo yidhahdaan dadku maxaa nicma fadhida meel kastaba barwaqa ka jirta, isna aanu taa ogeyn, aakhirka hal mar buu qarximanaya, uu xaqiiqadu ogaanaya. markaasna waa goorma? waa goor waqtigu dhaafay isaga laftigiisa lagana takhalusayo. marka daawada waxa fiican qofka shaqaalaha ah, qofku u shaqaynaya ee maamulka wahaya, inuu xaqiiqada la socodsiiyo, laakiinse aanu ku meereysan isjeclaysiin, aanu ku meereysan. qodobkaas waxa raacayo ka afaraada waa inaad gudataa howlaha adag ee lagu diray. marka qaar baa waxaa jira qofka madaxda uu kuu dirayo howl adag oo difficult ah, hawsha noocaasad ka soo baxdaa. markastuu qofka madaxda ogaado qofkaasi inuu yahayna rageed, marka loo baahanyay ugu adag tahay hawsha qaban kara, waa markastuu ku jeclaanayo. wuxuu ku yidhi waxaa laynaga rabaa maanta saacad kadib waxa lanaga rabaa intaas oo qoraal oo diyaara lanaga rabaa. haddii aad markaa aada caajis dareento ood qoraalada diyaarin weydo ood iska farfadhiisato, kuma jeclaanaya inay ka maamulo. laakiinse haddaad markiiba dadaasho oo saacad kadib aad wax alla wuxuu rabay ugu adkaad u diyaariso, wuxuu dareemayaa inaad tahay qofkii loo baahnaa, qofkii maalinta adag buu dareemaya inaad tahay. marka isku day inaad runtii ninka maamulahaaga aada runtii shaqooyinka ugu adaga oo kuu diro aada ka soo baxdo. taasi waxay keensanaysaa kalsooni badan inuu kugu runtii maxaa ku siiyo qofkii madaxa ahaa. inta waxaa ku raaxaya wax badan oo adiga runtii dee dhib badana kusoo gaadhi lahayd iyo wax badanoo kusoo gaadhaya marka aada shaqada culus qabanayso. waxaa loo baahaya waqtiyada inaad runtii muxuu ahayey aada ka gudubto si aad shaqada adag u qabato. markaad alla markaad qabatana qofkii madaxda ku ahaa runtii wuxuu dareemayaa farxad buu dareemayaa iyo inaad wax wanaagsan qabatay. qodobka shanaadi waxa weeyaan daawada waa inaad noqotaa qof shaqaale ah oo mas-uuliyadda la saaray qaadaya, oo iska ilaaliya cudurdaarada iyo muxuu ahaayey wax alla wixii odhanaya waxaasaa dhacday iyo wax kalaa nagu dhacay iyo cudurdaaro aan jirin qof sameeya ha noqonin, bale noqon qof qaladka uu galay qirta. haddii aada qalad samaysay waa inaad tirahda qofka madaxda aad ku tirahdaa mas-uuliyadda anigaa lahaa, qaladkaana anigaa sameeyey, waana cudurdaarkana halayga aqbalo. laakiinse ha noqon qof ila meereysa ah oo qaladkuu sameeyey ka meereysanaya oo cid kale qaladkii saaraya oo mas-uuliyaddii iska riixaya, marna ha noqon. hadduu qofka shaqaali noqdo qof mas-uuliyadda iska riixa oo cid kala saara, mas-uuliyaddaasoo isaga korkiisa ahayd, taasi waxay keensanaysaa qofkii madaxda inuu ku nacay keensanaysa. marka qodobkaasina daawada waxa weeyaan mas-uuliyadda tunka u rido oo wixii qaladaad samaysana qiro, markaasu qofka madaxdii uu ku jeclaanaya. qodobka lixaadi daawada waxa weeyaan waa inaad aqbashaa hawsha lagu diray hadday ka baxsan tahay job descriptionkii laguu sameeyey, hadday ka baxsan tahay waa inaad qabataa. haddaad tirado anigu waxaan qabanaya oo keliya waxa ku qoran job descriptionkayga, wixii kontraagii lagula heshiiyey shaqadii ku qorneed oo keliyaan qabanaya, wax kale qaban maayo. haddaad qof shaqaalo noocaasa noqoto, qofka maamulay kuma jeclaanayo. qofka maamulaha ee madaxda wuxuu jecel yahay qofka qabanaya shaqada ka baxsan shaqadiisii hore ee loo igmaday, qofkaasuu jecel yahay. markastoo qofku noqdo qof shaqo kastoo loo dira qabtana waa mar kasta oo ninka madaxda uu sii jeclaado. dawada markaa isku day
inaad noqoto qof qabta shaqo kasta oo loo diro. qodobka toddobaadi waxa weeyaan ee uu kugu jeclaanayo qofka madaxda ku ah waa inaad qabataa wax ka badan wixii lagaa filanayay. shaqaa laguu diray, waxa lagu yidhi shaqadaa soo qabo, waa inaad isku daydaa wax lama filaana inaad keento oo shaqadii inta aad ka badiso lagaa rabay la iraahdo qofka shaqadii la rabay uu ka badbadiyey oo wax ka sii badan buu sameeyey. markaasi waa marka ninka maamulaha ee madaxda ah uu runtii riyaaqaayo ee uu farxaayo uu ogaanayo inaad tahay qof shaqaalo oo la yaable. laakiinse haddii intii lagu diro aad ku koobsanaato, waxa lagu yidhi waxa lagaga baahanya 10 kastamar 10 macmiil inaad keento, markaasaad waxaa keentay 100 macmiil, qofka kambanigaasa muxuu oranayaa ninkan waa raggeedii. yacni waxa weeye wuxuu runtii aad helaysaa muxuu haayay ictiraaf la yaab laad helaysaa, maamuus iyo qadarin la yaab laad helaysaa. isku day marka inaad samayso wixii lagaa filinaya wax ka badan, isku day inaad samayso. qodobka 8 daawada waxa weeyaan waa inaad runtii daacad u noqotaa oo walaa aad siisaa qofka maamulaha ku ah ee madaxda ku ah. waxaanu la jeednaa waa inaad daacad u noqotaa marka discussionka lagu jiro ee la fadhiyo, kulanka la fadhiyo ee meetingka lagu jiro, raygaaga saxdaa sheego, xaqiiqada sheeg, cidna ha ka baqane. laakiinse marka go-aanka la qaato ee go-aanka uu guddoomiye ninka madaxda uu guddoomiyo yiro sidaasaa inoo go-aana, waxaad noqotaa qof go-aanka fuliya oo dhinacayo dhinacaatoona aan eegin. waa inaad walaa siisaa xurmayn iyo qadarin go-aanka la qaatay, xataa adiga haddii aan lagugu waafaqin, xataa haddii aad ka soo horjeeday, kol haddii go-aanka maamulahaagu qaato waanaad ixtiraamtaa. waxaad intaa kuu dheer waa inaad markasta daacad u ahaataa maamulaha marka kambaniga lagaa waraysto, marka aad kambaniga ka dhex baxdo ee wax lagaa weydiiyo, ha noqon qof xumaan ka sheega maamulihiisa oo markuu la fadhiyana runtii u nacableeya oo wanaag ka sheega, markuu dibadda joogana wax kala akhriya ha noqone. 2 weji ha yeelan, hal weji maamulaha kula dhaqan. haddii maamulahaaga qalad aad ku aragto, u sheeg, waxaa tira xaqiiqadaasaa jirta kambaniga dhexdiisa, guddoomiye saasaa jirta. marka dibadda aad joogtada sidaa waa inaad ahaatayo ood maamulahaaga daacad u ahaataa oo aad difaacdaa oo wixii wanaag iyo khayr uu leeyahayba aad ku difaacdaa. kambaniga daacad aad u ahaatayo kambanigii iyo sharikadan iyo wasaaraddan aad ka shaqaynayso aad daacad u ahaatayo aanad xumaan ka sheegin. xumaantii aad ka sheegi lahayd marka aad dhex joogto ee madaxda kula joogto u sheeg, wixii adigu aad u aragto deelqaaf ama qalada markaa sheeg. laakiinse marka aanad ka dhex baxdo ee madaxa kale aad la joogto, waa inaad ixtiraamtaa shaqadaa aad hayso, waanaad ixtiraamtaa, iyo dadka aad u shaqaynaysaba waanaad ixtiraamtaa. waxaa intaa ku dheer waa inaad noqotaa qof shaqaala oo keena wax cusub keena. madaxdu way jecelin qofka shaqaalaha ah ee afkaarta cusub, aaraada cusub la yimaada. waanaad creative noqotaa oo haddii muxuu ahay loo baahanya wax cusub, waa inaad maamulaha u sheegtaa afkaar cusub oo tiraa hawsha haddaynu qabana ka waran, tanooca ka waran. laakiinse waxaa muhiima markaad wax cusub keenayso ha noqoto wax cusubood soo jijaabisay, ood soo lafakurtay, ood soo falanqaysay, laakiinse waxaan bislayn hawla imane. wax bisil oo shaqaynaya oo practicala maamulahaaga u keen, uu ku farxaya qofka soo madaxi marka loo keeno fikrad cusub oo shaqaynaysa oo kambaniga ama wasaaradda kor u qaadaysa. waxaa intaa qodobka 9aad noqonaya waa inaad ogaataa ood baadhaa ood ogaataa ninkan madaxda ku ah maxaa isaga u ah awliyaad, maxaa u ah, maxaa muhiim u ah. qof kastoo madaxa meeshuu joogo waxbaa jira uu ka fakiro, waxbaa jira uu niyadda ku hayo, waxbaa jira isleeyahay waxaa qabo, waxbaa jira uu isleeyahay waxaasi waa waxa kuugu muhiimsanay meeshan aad u joogto. waxa waa inaad ogaataa. waxa markaad ogaato waa inaad kala shaqaysaa. markastoo ninka madaxda wuxu uu jecel yahay iyo wuxu uu rabo ee uu shaqada ku hagaajinayo, ee wasaaradda iyo kambaniga uu ku hagaajinayo, oo isleeyahay waxaa qabo, markastood ogaato oo aad kala shaqayso siduu u hirgelin lahaa iyo siduu u gaadhi lahaa, waa markastuu ku soo dhaweysanayo oo ku jeclaanayo. waa muhiim inaad ogaataa visionka qofka madaxda ku ah, aragtiduu aaminsan yahay
iyo hiiraalkiisa iyo heegsigiisa waa inaad ogaataa ee uu maskaxda ku hayo. ka markaad ogaato waa inaad ka isku daydaa markaa sidaad adiguna dhinacaaga uga adkay lahayd eed wax uga qaban lahayd. waa qodobada aadka u muhiimkaa ee loo baahan yahay. dawada waa inaad ogaataa qofkan madaxda ku ah shakhsiyadiisa. qofkan muxuu jecel yahay, muxuu necab yahay. haddaan qofkan dabeecadiisa aanad garanayn oo shaqaale aad tahay ood runtii iskala bilowdun howlaha dhib baa kusoo gaari karta. marka maxaa lagu leeyahay shakhsiyadda qofka maamulaha kuwa inaad ogaataa muxuu ku jecel yahay, muxuu necab yahay, maxaa ka farxiya, maxaa ka naxiya, waa inaad ogaataa. si aad u ogaato qaabkaad ula shaqaynayso iyo halka aad ka soo gelayso iyo sida wada shaqayntiinu ay u fiicnaan karto. marka shakhsiyadiisa waa muhiim. si aad kalsoonidiisa u hesho waa muhiim inaad ogaato qofkan dabeecooyinka uu leeyahay waa inaad ogaato. waxaa laga yaabaa ninka maamulaha ka dabeecadiisa inay tahay inuu duhurkii seexdo oo cidnaba aanu telefoon ka qaban. haddii adigu dabeecadda aanad garanayno telefoon aad ku qaraado maalin kasta duhurka dee uu ku sanifaya. marka isku day inaad qofkan dabeecadiisa iyo dhaqankiisana aada ogaato. weli qodobka 9aad baynu sheegaynaa. qodobka 9aad markaa wuxuu ku leeyahay waa ninkan madaxda ku ah shakhsiyadiisa fahan, dabeecadiisa fahan, muxuu jecel yahay ogow, maxaa muhiim oo awlawiyaad u ah waa inaad ogaataa oo uu rabaa inuu qabto oo uu ka shaqeeyo. waa inaad qofka si fiican u barataa. kadib markaasi waa inaad kala shaqaysaa sidii waxa uu niyadiisa ku hayo aad wax ugala qaban lahayd si kambaniga ama sharikadda ama wasaaraddaasi ay kor ugu kici lahayd oo meel fiican u gaadhi lahayd. qodobka ugu dambeyn kusoo khatiminaa dawada waxa weeyaan ee keenaya qofka maamulaha kuwa inaad heshiisaan oo si fiican aad u wada shaqaysaan oo dalaacdo oo mushaarka lagu kordhiyo waxa weeye daawade waa inaad xaqiijisaa ahdaaftii lagu dejiyey. shaqada marka aad soo gasho ahdaaf baa lagu dejinaya. ahdaaftii iyo ujeedooyinkii lagu dejiyey lagu waa hebelo waa inaad waxaa qabataa. waa inaad xaqiijisaa ahdaafta. sanad gudihii waanaad ku xaqiijisaa. 6 bilood waanaad ku xaqiijisaa. bil waanaad ku xaqiijisaa. ahdaafta waa inaad gaadha. haddii waxa aan soo sheego dhan aad qabato laakiinse aad noqoto qof ahdaaftii loo dejiyey ee la rabay inuu qabto aan qabanayn haddaad noqoto oo halkaa ka sheekaynaya ninka maamuli kuma jeclaanayo. maamuluhu wuxuu jecel yahay qofka madaxdu qofka uu shaqaalahu ah ee madaxda u yahay marka uu ahdaaftii u dejiye xaqiijiyo oo yiraahdo ahdaaftii la dejiyo waa kuwaas waan xaqiijiye. waliba ahdaaftaasi waxa uu xaqiijinayaa isagoo xataa hadduu waqtigu uu ku yaryahay. waqtigoo kugu yar haddana haddaad xaqiijiso aad bay u fiicanta. iyadoo daqdi badan ku saaran yahay oo culays badan ku saaran yahay marka aad xaqiijiso ahdaaftiisa aad bay u fiicanta. iyada oo run ahaantii maamuluhu uu maqan yahay, madaxdu ay maqan tahay, markaad shaqadaada ka soo baxdo waxaa lagu arkayaa nin shaqadiisa ku fiican oon eegeyn iskana dhaadhicinayn ninka maamulaha. oo dad baa jira maamuluhu markuu soo galo wasaaradda, wasiirku markuu soo galo ama markuu shirkadda uu soo galo qofkii madaxda ahaa isku dayna shaqeeyaan. markuu baxana shaaha iyo sharaabka iyo facebooka kala jira. qofkaasi waxaa tilmaamaysaa weli muu gaadhin xad la idhaahdo qofkaasi wuxuu ku socdaa dariiqii lagu jeclaan lahaa. qofka saxdii waxa weeyaan waa ninka shaqaalaha ah ee shaqadiisa qabsanaya xataa maamulihiisa haddaanu arkayn, xataa haddii waqtigu ku yaryahay, xataa haddii wax dhiirigeliya aana jirin, lacag iyo wax lamid oo dhiirigeliya haddaana jirin, qofka shaqadiisa qabsanaya ee dadaalaya ee xataa hadduu maamulihiisu maqan shaqada qabsanaya ee sida tooga soo baxaya, qofkaasi waa qofka runtii la oran karo wuxuu hanan karaa qalbiga qofka madaxda u ah. daawada 10 shay aanu sheegnayba waxay kuu horseedayaan haddii aad la timaado qofka madaxda ku ah inaad qalbigiisa aad qabsato oo runtii uu ku jeclaado oo aad soo jiidato kadibna aad runtii noqoto qof shaqaale oo goobta laga jecel yahay. intaasaan kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.